kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee nuxurka wararka qodobada xilligan ku daawad doontaan waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay diyaar garow dagaal iyo sidoo kale hubaruusha xoogan oo ka socodaya magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaan kula wadaagi doonaa xogta shir xasaasi oo xildhibaano iyo siyaasiyiin ay ku yeesheen guriga madaxweynaha hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo xilligan dadka waa siyaasiyiinta reer Muqdisho iyo sidoo kale guud ahaan siyaasiyiinta mucaaradka oo markaan sameynaya hubaruus iyo sidoo kale isbaasiyo xoogan oo karana hogaamiyaha ama maamulka hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay maxay ka dhaheen xilligan siyaasiyiinta mucaaradka hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamed xogo dheeraad oo ka soo baxay ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale warkeena ku daawan doonta waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wada tashiga qaranka oo dhawaan ka furmi doona magaalada Muqdisho caasimadda dalka madaxa maamul goboleedyada ku soo jeeda Muqdisho iyo sidoo kale qorshe culus oo socda ayaan kula wadaagi doonaa lafta garanaya Saciid Cabdullaahi Dine ka soo qayb gali doonaan maxay tahay isbedelada xilligan oo sameeynaya hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dalka dib ugu soo laabtay iyo sidoo kale qorshehiisa shirka Muqdisho ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale aad ku daawan doontaa waxa ka mid noqonaya dad shacab oo laga afduubtay gobolka Bakool iyo sidoo kale ciisad xoogan oo halkaas ka taagan ayd warkeena ku daawan doontaa daawada nagu soo biro kuma noqon saaxiibada nagu xiran muuqaalka la galay share garow la soo wadaag asxaabta arateena sidoo kale qaybta faalada nagu raab kana mid noqon saaxiibada ku xiran nuxurka wararka waa ku maasantahay daawashada la socodka wararkeena waa hagaag waxaan ku bilaabayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka sida muuqata waxay martigelinaysaa kacdoon xoogan oo ka dhan maamulka hogaamiye madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamed isku dayadana uu hogaaminayo madaxweynaha hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa looga soo horjeedaa go'aanada kala duwan oo qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed waxaana faahfaahin dheeraad laga helayaa kulan xasaasi ah oo xalay ka dhacay guriga oo magaalada Muqdisho ka degan madaxweynaha hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed kaasi oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka shirkani waxa ka qayb galay ku dhawaad kontor xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaal hore oo gobolka Banaadir iyo sidoo kale wasiir hore dhinacyada ayaa oo weliyo madaxweynaha hore dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa iska xog wareysa xaaladii ugu dambeeyay dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka ila wareedyo ku dhawaaya waxa ay soo wariyeen in xubnaha shirka ama xubnaha shirka sidoo kale faraqeeyeen go'aanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed oo ah ka dhigista laga sameeyo Muqdisho waxayna soo saareen hadda suurtagal ahayn maadaama iyagu mas'uul ka yihiin amnigooda welina ay dalka ka jiraan duruufo adag oo dhanka amniga ah sidoo kale waxa xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee shirka soo hadal qaadan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan qorshaha filla Soomaaliya ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod ah waxayna tilmaameen in xilligan ay dalka ka qabsoomi karin doorashadaas sabab la xiriira waqtiga oo aad ugu yar dawladda waxa kale oo lagu balamay in shirku ay soo socdaan isla markaana ay soo laabtaan xubnahan si ay u sii wadaan doodooda ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo sidoo kale ka dhigista madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed oo ku dhaqaaqay maalmihii ugu dambeeyay xubnaha mucaaradka ee ku sugan Muqdisho ayaa dhaqaaqyo xoogan waday isla markaana waxay dhaqaaqyo ka dhana filla Soomaaliya ay ka wadeen gudaha caasimadda Muqdisho waxaana uu sii xoogeystay markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed uu sameeyay ama uu ku dhawaaqay la sameeyo ka dhigis madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laba jimcadii hore waxa uu kaga dhawaaqay xarunta madaxtooyada qaranka ee filla Soomaaliya masaajidka ku yaala maalin jimcaha isagoo khudbad ka jeedinaya halkaasi in ay bilaabi doonaan sida uu sheegay barnaamijka ka dhigaysa ay kula dagaalamayeen cid kasta oo haysata isagoo ku anjabay in qof kasta oo hub haysta ama hubka haysta gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho in loo daadan doono shaqada dhexe habeenkii gurigiisa tallaabo degdeg ah laga qaadi doono isagoo markaasi madaxweynuhu kala jeeda arrintaasi inuu xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka u sheego inay iska dhigaan hubka isla markaana sidoo kale noqdaan dad caadi ah sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed madaxa maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay soo gaaraan magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka golaha wada tashiga qaranka oo lagu wado in horaanta bisha Oktoobar uu ka dhaco gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho shirkan oo mid xasaasi ah ayaa waxa ka qayb gali doona madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada marka laga reebo Puntland iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir filla Soomaaliya ayaa tan wada qorshe culus oo ku aadan sidii uu qabsoomi lahaa shirka waxaana ajenda ugu weyn ee shirku yahay doorasho oo sida ay doorasho ku dhici karto ama doorasho dhinacyadu ku kala aragti duwan yihiin sidii ay u qabsoomi lahayd shirkan oo in muddo wajahaya caqabado xoogan oo ka imaanaya maamulada qaar ka mid ah sida Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaana dib u dhacay dhowr jeer labadii bilood ee la soo dhaafay madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya sidoo kale juhdi badan gelinaysa welina aan ka daalin sidii shirkan la isugu keenay madaxda dawlad goboleedyada dalka madaxda shirka ka mermereysay inay ka soo qayb galaan waxa kamid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe balse waxa la sheegay inuu qorsheystay inuu ka qayb galo kulanka
maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in Maxamed Madoobe uu yimaado Muqdisho si shirka golaha wadatashiga qaranka uga qayb galo isaga oo shalay ka soo laabtay safar dalka dibadiisa kadibna dib ugu laabtay fadhigiisa magaalo xeebeedka Kismaayo. Cabdicasiis Laftagareen ayaa isna madaxda ama kamida madaxda diidan in magaalada Muqdisho yimaadaan balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weli ka dadaalaysa xalka iyo sidoo kale shirkaasi inuu dhaco si talo midaysan looga yeesho arrimaha masiiriga wadanka. shirkani waxa uu ku soo aadayaa xilli xasaasi isla markaana ay taagan tahay xiisada culus oo gudaha iyo dibadda taasi oo maareynteeda looga baahan yahay madaxda shiraysa ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland. shirka golaha wadatashiga qaran oo dhowr jeer dib u dhacay labada bilood la soo dhaafay waxaa la filayaa inuu raanta bisha Oktoobar uu ka dhaco Muqdisho waxaana madaxda shirkaasi ka mirmeeraysan ay ka qayb galaan kamid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe balse hadda waxaa la sheegay inuu qorsheystay inuu yimaado Muqdisho. madaxweynaha ayaa gelinkii dambe ee shalay dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo kadib howlo u gaar ah oo dalka dibadiisa ugu maqnaa maalmihii la soo dhaafay. Axmed Madoobe waxa garoonka diyaaradaha Kismaayo maanta ama maalinta shalay ay ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socota dowladda ama ka socota maamulka uu hogaamiyo Axmed Madoobe hogaamiye Jubbaland. maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in uu Axmed Madoobe uu yimaado Muqdisho si shirka golaha wadatashiga qaranka uu qayb galo. dowladda federaalka Soomaaliya jawda badan ayay gelinaysa welina kama aysan daalin si shirkan uu dhici lahaa. hogaamiyaal badan oo ku jiro Axmed Madoobe iyo sidoo kale Cabdicasiis Laftagareen ayaana la sheegay inay waayida la soo dhaafay ka mirmeereen ka qaybgalka shirkani. wararkan iga soo gaaray gobolka Boqolna waxay sheegeen in dad shacab lagu afduubto deegaan dhacaxadka ay wadaagaan Boqol iyo sidoo kale dowladda deegaanka Soomaalida halkaas oo weerar ka geysteen maleeshiyad hubeysan. dadka deegaanka ayaa waxay soo weerareen maleeshiyadka ay ka yimaadeen deegaan u dhow degmada Rabdhuure isla markaana halkaasi ka kaxaysan ilaa 8 qof oo shacab ay ku jiraan dhalinyaro caruurta waa sidoo kale caruur iyo sidoo kale dad waaweynba. maleeshiyadka afduubka geysta waxa la soo wariyay inay isku soo ekeysiyeen ciidanka liyu booliis ee dowladda deegaanka kadibna ay xoog ku wateen dadkaasi rayidka lama oga halka ay laadeen waxaana arrintan ay cabsi xoogan ku abuurtay dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka Boqol ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan deegaanada u dhow xadka. wararka intaas waxay ku sii dareen halkaasi waxay ku soo dareen dhacdadan afduubka ee hasalka ku hayso xiisad la xiriirta aan qabiil oo ka tagan halkaasi taasoo muddooyinka dambe ka sii dareysa waxaana jira dad kala duwan oo hore looga afduubtay halkaasi. dhinaca kale ma jiro wax dal oo ka soo baxa maamulka gobolka Boqol iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda deegaanka oo ku aadan shacabka laga afduubtay halkaasi. xaalad kacsanaan ayaa weli laga dareemayaa aaga degmada Rabdhuure oo halka laga kaxaysa shacabka waxaana xoogeystay dhaqdhaqaaqyo ay wadaan maleeshiyadka halkaasi ku sugan. labada garab ayaana waxay hadda muujinayaan in midba midka kale uu ka xanaaqsan yahay isla markaana hadda wax kasta ay suurtagal noqon karto isna bedeli karto saacadaha iyo sidoo kale daqiiqadaha soo aadan. si kastoo ay noqotoba lama suuraysan karo halkay wax ku dambeyn doonaan iyo sidoo kale halka xiisadan ay ku dambeyn doonto iyadoo dadku ay ka muujinayaan walaacyo xoogan dhaqaaqyada ciidan ee xilligan ka soconaya qayb ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka Boqol. waxaana kala socotaa daawada nuxurka wararka waxay warar aan kaaga hayna gudaha iyo dibadda halkaasi nagu soo biro kamid noqo saaxiibada nagu xiray muuqaalka la garay share garow la soo wadaag asxaabta arateena sidoo kale qaybta falada nugrab oo kuma santahay daawashada socodka wararkeena taliyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.